qisada Nabi Muuse calayhi salaam waa qisada ugu badan ee Alle subxaanahu wa ta'ala uu Quraankiisa uga warramay. qisada Nabi loo diray ninkii adduunka ugu kibirka badnaa intuu Alle Aadam abuuray, ninkii sheegtay ilaahnimada kuna riyooday hameen iyadoo dhulkii uu ka talin jiray uu ku soo wajahan yahay dab holcaya oo baabi'inaya dhammaan guryihii iyo qasriyadii dadkiisa. marka laga tago guryaha reer Bani Israa'iil oo uu gumaysan jiray kuna shaqaysan jiray, wuxuu go'aansaday inuu kurka ama qorta ka jaro wiil kasta oo ka dhasha reer Bani Israa'iil, si uu dabkaasi oo loogu fasiray inuu yahay wiil ka dhalan doona reer Bani Israa'iil oo burburin doona sadanadiisa si uu uga hortago ka hor intuusan ogaan inankii uu ka cabsanayay inuu sadanadiisa baabi'iyo uuba ku dhex korsanayay qasrigiisa. xalqadeena 15aad ee qisaska ambiyada ayaynu ku dul istaagi doonaa qisadii Nabi Muuse calayhi salaam. daawadayaal, halkani waa Gob Media, anigana waxaan ahay Cali Maxamed. ku soo biir janaalka oo subscribe saar. Nabi Muuse waxa uu ka mid yahay durriyadii Nabi Ibraahim calayhi salaam, wuxuuna ku abtirsadaa Nabi Yacquub calayhi salaam. abtirsigiisuna waxa uu noqonayaa Muusa ibnu Ibraan ibnu Qaasir ibnu Caasir ibnu Laawi ibnu Yacquub calayhi salaam. markii Nabi Yuusuf calayhi salaam uu la heshiiyey walaaladii, wuxuu soo kaxeeyay aabihii Nabi Yacquub iyo dhammaan ehelkiisii, waxayna degeen Masar. halkaasi ayay ku noolaayeen muddo dheer. Nabi Yacquub waxa lagu ninaasi jiray Israa'iil, ubadkiisana waxa la dhahaa Bani Israa'iil. reer Bani Israa'iil waxay ku noolaayeen Masar iyaga oo sharaf iyo karaamo leh. Masar waxa xukumi jiray dadkii meesha deganaan u badnaa Qibdiyiinta oo ah dad taariikh fog leh. Masarna qarniyo hore ka talin jiray. markii muddo la wada deganaa reer Bani Israa'iilna ay noqdeen dad tiro badan, ayaa waxa xasad iyo cadaawad u qaaday dadkii Qibdiyiinta, kuwaasi oo aaminay in dadkaani ay ka qaadi doonaan dhulkooda. waxaa bilowday dagaalo iyo colaadin lagu hayo reer Bani Israa'iil. markii ay isku dayeen inay isdifaacaanna waa la jabiyey maadaama laga tiro badnaa. Qibdiyiinta Masaaridu waxay u geysteen reer Bani Israa'iil dhibaato aad u weyn. waxay laayeen raggoodii, hantidoodiina waa ay dhaceen. intii soo hartayna way adoonsadeen. xaakimka ama boqorka markaasi xukuma Masar waxaa loo bixin jiray magaca Fircawn. fircawnadii isaga kala dambeeyay xukunka Masar waxay adoonsadeen reer Bani Israa'iil. muddo kadibna waxaa xukunka Masar la wareegay mid Fircawna oo aad u adag kana naxariis daran faraaciintii ka horreysay, wuxuuna cadaawad iyo xaasidnimo fogaatay u hayay reer Bani Israa'iil. intaasi waxaa usii dheerayd kibir xadkiisa dhaafay ilaa uu ilaahnimo sheegtay. waa Fircawnkii Alle Quraankiisa ku sheegay ee ilaahnimada sheegtay. Fircawn ayaa hameen riyooday. waxa uu arkay arrin ka yaabisay oo ahayd naar ama dab ka yimid dhulka Falastiin oo gubaya wax kasta oo ka soo horbaxa. waxaana la yaab lahayd in naartaasi soo gaarayso dhulka Masar oo gebi ahaanba ay baabi'inayso guryihii Qibdiyiinta iyo hantidii Fircawn, waxna aysan yeelayn guryihii ay ku jireen reer Bani Israa'iil. Fircawn wuxuu isugu yeeray sihroolayaashii iyo kuwii faalka rogi jiray. wuxuu uga warbixiyey riyadiisii, waxayna dhammaantood isku raaceen inuu reer Bani Israa'iil ka dhalanayo wiil yar oo afgambin doona xukunka Fircawn iyo gumaysigii uu ku hayay reer Bani Israa'iil. Fircawn wuxuu guda galay inuu isugu yeeray wasiiradiisii, la taliyayaashiisii iyo intii ka agdhoweyd. kadibna wadatashi dheer, go'aankii wuxuu noqday in la gowraco dhammaan wiilasha ka dhasha reer Bani Israa'iil. sidii ayaa go'aankii lagu fuliyey, wuxuuna sidoo kale amray in wiilasha dhasha iyagana sidaas oo kale meeshooda lagu gowraco si taranka reer Bani Israa'iil u yaraado. maalintii dambe ayay wasiiradiisii ku dhaheen, Fircawnow, haddii aad gowracdo dhammaan carruurta reer Bani Israa'iil, yaa inoo shaqaynaya? shaqaalihii hore oo jirayna waxay noqdeen waayeel. markaas ayuu Fircawn soo saaray dikreeto cusub oo ah in wiilasha reer Bani Israa'iil ka dhasha sanadna la dilo, sanadna la dhaafo, si aan shaqaale loo waayin iyo addoomo xoog leh oo lagu xamaasho. sanadkii la dhaafay, wiilashii dhashay waxaa ka mid ahaa Haaruun calayhi salaam oo ahaa Nabi Muuse walaalkii ka weyn. sidii ayuuna uga badbaaday gowricii. balse sanadkii dambe ayaa waxaa dhashay midkii rumayn lahaa riyadii Fircawnkii ilaahnimada sheegtay, waana Nabi Muuse calayhi salaam. Nabi Muuse hooyadii markii ay umushay waxay u cabsatay wiilkeedii, qalbigeedana waxaa galay walwal iyo murugo. kadibna Alle subxaanahu wa ta'ala ayaa u waxyooday Nabi Muuse hooyadii, waxaana la faray inay samayso sanduuq ka samaysan loox. kadibna ay ku riddo wiilkeeda Muuse kuna tuurto biyaha webiga. Allena wuxuu u ballan qaaday inuu u soo celin doono isaga oo rasuul xagga Alle laga soo diray ah. Nabi Muuse hooyadii waxay sanduuqii ku tuurtay badda. sanduuqiina waxaa qaaday mawjadihii badda, waxayna ku tuureen xeebta. kadibna waxaa helay sanduuqii shaqaalaha qasrigii Fircawn. sanduuqii markii la furay waxay ka heleen cunug aad u yar oo wejigiisu iftiimayo. isla markiiba waxaa loo sheegay Fircawn. sidoo kale way garteen inuu yahay reer Bani Israa'iil. Fircawn ayaa yidhi hala gowraco, laakiin xaaskii Fircawn oo ahayd ruux qalbi wanaagsan ayaa tiri, ha dilinina, waan ku indhadoogsanayaa, waxaana laga yaabaa inuuna anfaco ama aan ka dhiganno ubad. sidii ayuu Alle subxaanahu wa ta'ala ku badbaadiyey Muuse calayhi salaam. Allena wuxuu qadaray in Muuse ku noolaado qasrigii ay ku noolaayeen Fircawn iyo intii la socotay.
nebi muuse hooyadii waxaa ku dhacay walwal iyo walbahaar waxayna ku dhowaatay inay bannaanka u baxdo oo tiraahdo cunugaygii waxaan ku tuuray badda oo ay naadiso balse allah subxaanahu wa tacaala ayaa sugay qalbigeedii waxaa dhacday nebi muuse inuu diido caanaha naaska haween badan oo loo geeyey waana laga quustay in caana la siiyo walaashiis oo kor ka ilaalinaysay ayaa xaaskii fircoon ku tiri maydin tusa ruux noojin kara wiilkan oo uu caanaheeda cabbayo way ka yeeleen taladii sidii ayaana muuse calayhi salaam loogu soo celiyey hooyadii iyada oo fircoon iyo kuwii u shaqaynaya aysan dareemin waxaana muuse hooyadii lagu siin jiray lacag si ay u nuujiso iyagooba aan fahansanayn inay tahay hooyadiis nebi muuse calayhi salaam waxa uu ku barbaaray gurigii fircoon ilaa intii uu ka xoogaysanayey fircoon iyo qoomkiisii way ogyihiin in nebi muuse calayhi salaam uu yahay reer bani israa'iil laakiin meeqaam sare ayuu ku lahaa qasrigii fircoon maalin maalmaha ka mid ah ayuu muuse arkay laba nin oo isdilaya mid waa qibdiyiinta masar kan kalena waa nin daciifa oo reer bani israa'iil ka soo jeeda ninkii qibdiga ahaa ayaa ka xoog roonaaday kii kale ee reer bani israa'iil ninkii reer bani israa'iil ayaa u qayliyey markuu arkay nebi muuse calayhi salaam wuxuuna ku yidhi isagoo u dhawaaqaya muusew iga celi ninkan nebi muuse calayhi salaam sida ay culimmadu sheegaan wuxuu ahaa nin xoog weyn markiiba hal feer ayuu ku dhuftay kii qibdiga ahaa kadibna naftii ayaa ka baxday nebi muuse oo ka xumaaday nafta uu gooyey ayaa yidhi taasi waa camalkii shayddaanka isaguna waa cadow fogaaday wuxuuna alle ka baryey inuu u dambi dhaafo maalintii ku xigtayba waxaa haddana is haysta nin qibdi ah iyo ninkii reer bani israa'iil ee shalay uu muuse u gargaaray wuuna u qayliyey mar kale isagoo oo leh muusew iga qaba ninka kadibna nebi muuse wuu ku soo dhaqaaqay xaggooda balse ninkii reer bani israa'iil ayaa mooday markan inuu isaga dilayo wuxuuna yidhi muusew ma waxaad doonaysaa inaad i disho sidii aad shalayba u dishay ninkii qibdiga ahaa hadalkan ayaa sabab u noqday inay arrintii fashilanto oo la ogaado in muuse dilay ninkii qibdiga ahaa oo horeyba waxaa loo raadinayay ninkii ka dambeeyey falkaasi dil kadib waxaa dhacday in nebi muuse ay gasho cabsi fircawn iyo ciidankiisii ayaa ku tashaday in muuse soo qabto kadibna la dilo si loogu aaro ninkuu dilay nebi muuse calayhi salaam markii uu maqlay warkii ayuu magaalada isaga baxay isagoo u jahaystay dhankaasi iyo madyan nebi muuse calayhi salaam waxa uu galay socdaal dheer oo ay u dheer tahay cunto la'aan iyo haraad kadib wuxuu meel fog ka arkay ceel ay dad ka naasanayaan ceelkii markii uu yimid ayuu la kulmay laba ruux oo haween ah oo aan waraabsanayn xoolaha kadibna si ixtiraam iyo xusmad ay ku jirta ayuu u weydiiyey sababta ay xoolaha u waraabsan waayeen kadibna waxay ugu jawaabeen iyagoo hadalkooda ay ka muuqato edab aad u sarraysa ma waraabinayno xoolaha ilaa raggu ay dhammaystaan waraabinta aabbaheenna waa waayeel oo ma awoodo inuuna soo raaco hadal kale muusan weydiinin nebi muuse calayhi salaam xoolihii ayuu u waraabiyey kadibna wuxuu fadhiistay geed hoostii isaga oo leh allo wixii khayr ah oo aad isiiso waan u baahanahay labadii gabdhood markii ay gurigoodii tageen ayay aabbahood uga warrameen ninkii arrintii ceelka ku caawiyey odaygii ayaa yidhi iigu yeera mid ka mid a gabdhihii ayaa u timid iyada oo xishood ka muuqdo ayay ku tiri aabbahay ayaa kuu yeeraya si uu kaaga abaalmariyo waraabintii aad noo waraabisay xoolaha muuse calayhi salaam markii uu u yimid gabdhaha aabbahood ayuu uga warramay qisadiisa iyo siduu uga soo baxsaday fircawn markaasi ayuu odaygii ku yidhi ha cabsan waad ka badbaaday qoomkii daalimiinta ahaa kadibna halkii ayuu reerkii kula joogay isaga oo lagula heshiiyey inuu 8 sano reerka xoolaha u waraabiyo kadibna gabar ka mid a labadii gabdhood loo guurin doono nebi muuse calayhi salaam markii uu dhammaystay ballantii wakhtiga ayaa loo guuriyey gabadhii sidii ballanku ahaa culimmada qaar ayaa tilmaamaya inuu odaygaasi ahaa nebi shucayb calayhi salaam ninka waayeelka ee uu u tegay nebi muuse calayhi salaam muddo markii uu ku sugnaa madyan ayuu wax jeclaystay inuu u safro masar goor habeen ah ayay nebi muuse iyo ehelkiisii ay ka lumeen waddadii tegaysay masar kadibna wuxuu meel fog ka arkay dab baxaya nebi muuse calayhi salaam nebi muuse ayaa farxay isaga oo mooday in dad meel degan uu yahay dabkaasi kadibna xaaskiisii ayuu ku yidhi waxaan aadayaa dhanka dabka ama akhbaar ayaan inoo ka keenayaa ama dab aan dugsanno ayaan inoo ka soo qaadayaa markii uu gaaray dhankii dabka oo ka baxaya meel buur ah dusheeda ayuu maqlay cod ku odhanaya muusow anigu waxaan ahay allah oo allah kale uusan jirin oo xaq lagu caabudo iska bixi kabaha waxaana halkaasi uga bilowday nebi muuse calayhi salaam waxyigii iyo inuu xambaaro dhambaalka alle subxaanahu wa tacaala si alle uu u tuso mucjisada nebinimadiisa wuxuu amray inuu dhulka ku tuuro usha uu wato kadibna waxay noqotay mas weyn kadibna nebi muuse ayaa cabsaday kadibna alle ayaa ku yidhi ha cabsan waxaa tahay mid aamina sidoo kale mucjisada labaadna alle wuxuu uga dhigay inuu gacantiisa jeebka geliyo kadibna waxaa ka soo baxaya iftiin waxaana la amray inuu u tago fircawnkii uu naftiisa kala soo baxsaday si uu dhambaalka alle u gaarsiiyo nebi muuse calayhi salaam wuxuu codsaday in alle ku xoojiyo walaalkiis haaruun calayhi salaam si uu garab ugu noqdo maadaama uu ka aftahansanaa allena ducadiisu wuu aqbalay nebi muuse calayhi salaam iyo haaruun calayhi salaam waxay si toosa u tageen qasrigii fircawn
fircawn ayaa loo sheegay in nebi muuse iyo nebi haaruun calayhi salaam ay joogaan qasriga oo ay rabaan inay isaga la kulmaan markii loo geeyey ayay u sheegeen in alla subxaanahu wa tacaala uu u soo diray oo isaga iyo qoomkiisa ay ugu yeeraan cibaadada alle fircawn aad ayuu ula yaabay kadibna wuxuu yidhi isaga oo aad ula yaaban ilaah aan aniga ahayn miyaad leedihiin muusow adiga soo anigu kuma korin kadibna intaad kibirtay qof dadkayga ah soomaadan dilin fircawn aad ayuu u kibray wuxuuna ogaaday in hawl cusub ay u bilaabatay nebi muuse calayhi salaam iyo nebi haaruun ayaa si degan ula hadlay fircawn maadaama alle subxaanahu wa tacaala uu kula dardaarmay in ay hadal jilicsan kula hadlaan fircawn laga yaabe inuu xaqa raaco fircawn oo jeesjeesaya ayaa yidhi maxaa caddayn ku ah markaasuu nebi muuse calayhi salaam dhulka ku tuuray ushii uu watay ushii ayaa isku beddeshay mascad haddana gacantiisa ayuu jeebka geliyey wuxuu soo saaray gacantii oo ifaysa fircawn oo argagaxsan ayaa yidhi sixir weyn ayaad la timid sixiroolayaal ayaan kuu keenayaa kula tartama ballanteennuna waa maalinta dabaaldega ama ciidda sidii ayaana lagu kala tegey waxaa fircawn loo keenay sixiroolayaashii joogay masar oo idil kuwoodii ugu khatarsanaa waxaana loo sheegay in la sii doono hanti ay ku farxaan haddii ay muuse ka guulaystaan markii la gaaray maalintii ballanta dadkiina ay isugu soo baxeen goobtii barxadda ahayd ayaa waxaa yimid sixiroolayaashii uu fircawn soo arooriyey sidoo kale fircawn ayaa goobta joogay nebi muuse calayhi salaam ayaa isaguna soo xaadiray goobtii lagu kala baxayay kadibna sixiroolayaashii ayaa yidhi muusow ma adigaa hormaraya mise annagaa kaa hormarna wuxuu yidhi iga hormara kadibna iyaga oo leh waxaan ku dhaarannay sharafta fircawn ayay tuureen ulahoodii kuwaasi oo isku beddelay masas iyo abeesooyin alle subxaanahu wa tacaala ayaa nebi muuse u waxyooday waxaana la faray inuusan cabsan oo ushiisa u tuuro markii uu tuuray ayay waxay noqotay ushii mas weyn oo cunay dhammaan masaskii kale ay sixiroolayaashu soo bandhigeen sixiroolayaashii markii ay arkeen mucjisadan ka tanka weyn sixirkii ay wateen ayay dareemeen inuusan waxan sixir ahayn kadibna intay sujuudeen ayay waxay dhaheen waxaan rumaynay rabbiga muuse iyo haaruun fircawn markuu arkay ceebta ku dhacday ayuu inta xanaaqay yidhi waa macallinkiinnii markii horeba idin baray sixirka dhammaantiinna ciqaab adag ayaan idin marin doonaa fircawn wuxuu bilaabay inuu ciqaab adag marsiiyo reer bani israa'iil nooc kasta oo cadaab ahna waa u dhadhansiiyey nebi muuse calayhi salaam ayaa mar walba fari jiray inay adkaystaan samirkana badiyaan kadibna alle subxaanahu wa tacaala ayaa faraj u furay waxaana la amray inay ka baxaan masar bixitaankooda ayaa lagu aadiyey wakhti fircawn iyo dadkiisii ay lahaayeen dabaaldeg ay magaalada bannaanka uga baxaan sidaasi ayay reer bani israa'iil uga baxeen magaaladii wax yar markii ay socdeen oo dhanka badda u dhowaadeen ayaa la ogaaday kadibna fircawn ayaa soo watay ciidan lixaad leh si uu u eryado reer bani israa'iil waxayna labadii kooxood isku heleen xeebta arrintan ayaa cabsi gelisay qoomkii nebi muuse maadaama ay shacab ahaayeen fircawnna uu watay ciidan aad u xoog badan nebi muuse calayhi salaam ayaa ahaa mid mar kasta dhiirigeliya dadkiisa una sheega inaysan cabsan oo awoodda alle ka weyn tahay midda fircoon markii fircawn iyo ciidankiisii ay soo dhowaadeen nebi muuse alle subxaanahu wa tacaala ayaa u waxyooday inuu usha ku dhufto badda waxaa yaab iyo mucjiso ahayd in baddii ay u kala baxdo waddo ama jid halkii ayayna mareen reer bani israa'iil markii ay dhammaantood gudbeen ayay fircawn iyo ciidankiisii iyaguna baddii soo galeen kadibna markii ay dhammaantood kusoo wada xaroodeen ayuu alle amray baddii inay sideedii ku laabato oo isku darsoonto halkaasi ayaa lagu halaagay fircawn iyo ciidankiisii fircawnna isaga oo naf yari ku harsan tahay ayuu bannaanka u baxay kadibna alle ayaa amray jibriil inuu afka dhooba uga dhejiyo waxaana lagu yidhi meydkaaga waan xafidi doonaa si kuwa kaa dambeeya aad calaamad ugu noqoto sidaasi ayuu alle ku badbaadiyey nebi muuse calayhi salaam iyo qoomkiisii kadibna nebi muuse wuxuu aaday buurta siinaay si uu alle subxaanahu wa tacaala ula soo hadlo hogaankii reerkana wuxuu uga tegay walaalkii haaruun calayhi salaam nebi haaruun wuxuu mar kasta ahaa garabka walaalkii nebi muuse alle ayaa ku soo dejiyey nebi muuse kitaabka towraad si uu dadkiisa u gaarsiiyo markii uu nebi muuse dib ugu soo noqday reerkiisii ayaa wuxuu arkay reer bani israa'iil oo caabudaya dibi markaasi ayuu inta xanaaqay haaruun garka ku dhegay oo yidhi waa maxay sidani nebi haaruun calayhi salaam ayaa ku yidhi way caasiyeen wayna diideen inay ka tagaan shirkigan kadibna nebi muuse calayhi salaam ayaa ka waday dibigii ay caabudayeen wuxuuna meesha ka cayriyey ninkii hawsha ka dambeeyey oo la odhan jiray saamili reer bani israa'iilla wuxuu la tegay kitaabkiisii towraad ee uu alle ku soo dejiyey halkaasi ayay iyaguna ku toobad keeneen imaam aldabri wuxuu wariyaa in nebi haaruun calayhi salaam uu dhintay ka hor nebi muuse waxaana la sheegaa in qabriga nebi haaruun calayhi salaam uu ku yaallo buurta xuur ee dalka jordan halka qabriga nebi muuse calayhi salaam uu ku yaallo goob loo yaqaano maqaamka nebi muuse oo ku taalla magaalada areexa oo 12 kilomitir u jirta magaalada barakaysan ee qudus أقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما